maraykanka intuu dagaalka socday haddaad awood isbidaysid oo aad xoog leedahay oo ammaanta tahay dowladda adduunka ugu xoogga weyn carar ma soo mari kartaa hormus aa oggolaatid fadeexaddii iyo ceebtii iyo wixii lagaa hayay bannaankaa la keenaa ninkan marka waxaa la aaminsan yahay nimankaasu inay wax ka hayaan ceebo inay ka hayaan marka isla markii haddii meeshu meel sahlan tahay oo barxad tahay oo qof walba iska soo bari kara tahay markuu dagaalka socda imaan lahayd dagaalka intuu socday baxrul carab iyo waxay jireen badweynta hindiya marka hadda marka inay inta soo dhowaadaan ay dhahaan iiraanaa go'doominaynaa waa wax iiraan aysan wax weyn u arkin marka su'aasha waxay tahay ma go'doomin kartaa iiraan dekedaha khaliijka haa way go'doomin kartaa iyaguna maxay sameeyeen iyaguna way weerareen saldhigyadii maraykanka waa baabi'iyeen israa'iil meelo kala duwanay ka garaaceen saldhigyadeeday garaaceen halbowlayaashii dhaqaalaha meelihii sirdoonka wixii oo dhan ay garaaceen marka waxay isku darsadeen niman geesiyaala niman hawkar ah waxaana ka garan kartaa gobolka ay ku nool yihiin carabtii iyo muslimiintii kaloo joogtay cid wax samaysan karta lama arko ilaa iyagu gantaalo ay samaystaan daroonis ay samaysteen kulanti wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha iyo qadarinteena mudan meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo ku saabsan xaaladihii ugu dambeeyay xiisadda bariga dhexe waxaan ku furfuri doonaa galka xaaladiisu ay murugsan tahay ee bariga dhexe dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo waliba Mareykanka iyo Iiraan iyadoo la tilmaamayo in waxyaabo badan ay dhici karaan maalmaha soo aadan sidaas daraadeed si wax badan aan uga ogaano suurtagalnimada umurahaasi iyo waliba halka uu ku soo afmeermi karo ma la heshiin karaa mise xiisadu way ka sii dari kartaa wax badan ayaan ka warrami doonaa dhammaan umurahan waxaan la falanqeyn doonaa isla markaana aan su'aalahaasi hordhigi doonaa wariyaha weyn ee miisaanka culus rugcadaaga saxaafadeed al-ustaad cabduqaadir maxamed cashar nadaara al-ustaad marka ugu horeysa aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa bartayda warweyn TV in markaasi aan kugu marti qaaday aad naga ajiibtay runtii sharaf bay ii tahay marka ugu horeysa soo dhow waa dhawahay cabduqaadir waana idin salaamaya salaan kadib aad baa u mahadsan tahay mar kale haddii lagu dhihi lahaa maanta xaaladda bariga dhexe magac u bixi maxaad siin lahayd wallaahi waa xaalad aad u murugsan dhinacyo badan marka laga fiiriyo waa meel aad iyo aad dhibaato badan uga taagan tahay waaye cabsi badan laga qabo gobolka hadday tahay iyo haddii ay tahay dagaal saddexaad inay horseedo xiisaddan waxaasoo dhan cabsi badanaa marka jirta marka aniga aan magacaan u bixin lahaa waxay tahay meel murugsan inay tahay arrintaas waa gartay al-ustaad markaad fiirisid dowladda Iiraan dagaal 40 cisho bay ku soo jirtay xaaladda Iiraan marka la eego maanta waa sidee wallaahi Iiraan dhaawac badanaa soo gaaray si xunaa loo duqeeyey weliba si naxariis la'aana wixii la heli karay waa lagu garaacay haddii ay tahay bambooyinka iyo gantaalaha diyaaradaha ay tuuraan iyo haddii ay tahay gantaalaha badda laga soo rido iyo dhulka ee maraykanka caanka ku yahay ee la yidhaahdo tomahawk ilaa maraykanka uu gaaray uu yidhaahday waa naga dhammaadeen wax maaragtay gantaalihii aan ugu yaraaday oo saan ugu garaacaynay Iiraan marka waxaad dareemaysaa marka culayska miisaanka iyo weerarada dhibaatada ay u geysteen goobo badanaa la duqeeyey waxaa kaloo la duqeeyey meelo dowladdu leedahay meelo shacabku leeyahay iskuullo jaamacado cisbitaallo wax maaragtay Iiraan loo daayey ma jirin waxaa la duqeeyey dekedaha waxaa la duqeeyey eeraboorada laakiin Iiraan ma isdhiibin sababtu waxa waaye dadkan iiraaniyiinta badankood inkastoo horta qowmiyaad kala duwan ay yihiin laakiin dadka waxaa u badan farisiyiinta la yidhaahdo farisiyiintana waa dad muddo xadaaradooda soo jirtay maraykanka ilaa 200 iyo xoogaa ilaa markay ugu badantahay 300 oo sano ayay xadaaradiisu gaartaa
laakiin nimankan farisiinta ilaa 2000 iyo ka badan oo sano ayay xadaaradooda jirta waa xataa nimankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii iimaanka la geyn lahaa xidigaha waan hubaa farisiyiintu way ka doonan lahaayeen marka nimankanu marka waxay isku darsadeen niman geesiyaala niman hawkar ah waxaana ka garan kartaa gobolka ay ku nool yihiin carabtii iyo muslimiintii kaloo joogtay cid wax samaysan karta lama arko ilaa iyagu gantaalo ay samaystaan daroonis ay samaysteen dadaalkooda marka waa ka garan kartaa marka nimankaa dhaawac culusaa soo gaaray waa la duqeeyey waa la rafaadiyey waa la isugu tegey hub casri ahaa lagu weeraray laakiin iyaguna maxay sameeyeen iyaguna way weerareen saldhigyadii maraykanka waa baabi'iyeen israa'iil meelo kala duwanay ka garaaceen saldhigyadeeday garaaceen halbowlayaashii dhaqaalaha meelihii sirdoonka wixii oo dhan ay garaaceen marka iyaga culays waa la saaray laakiin iyaguna culays midkaa ka weyn ama la mid ah ayay iyagana maraykanka iyo israa'iil saareen marka waxaan isleeyahay dhinacna ma fayooba marka loo fiiriyo dagaalka waa gartay hubkii iyo gantaaladii ay haysteen inta la burburiyey oo la gaaray ilaa imisaa lagu qiyaasi karaa iyadoo lagu cabirayo awoodda iiraan walaa horta sheekooyin kala duwanaa ka soo baxaya maraykanku waxay leeyihin ayaga 80 ilaa 90 boqolkiiba hubkii gantaalihii iyo meelihii ay ka soo ridayeen iiraan waa burburinay iiraanna waxay leedahay waxna laka burburiyey ma jiraan xataa waxaa caddaynaya niman sirdoon oo maraykana iyo kuwo kale oo israa'iiliyiina waxay leeyihiin inta naloo sheegayey wax ka jira ma jiraan iiraan awooddeedu weli way diyaar waa diyaar weliba waxay haysataa 10,000 oo gantaalo ah 10,000 ka badan oo gantaalo ay haysataa oo weliba ay ku soo weerari karto israa'iil oo ay ku burburin karto oo gobolka ku weerari karto marka weli awooday leedahay marka hadalkaas inuu sax yahay marka waxaa ku garanaya nimanka iiraaniyiinta waxay sameeyaan waxay yidhaahdeen maraykanka intuu dagaalka socday haddaad awood isbidaysid oo aad xoog leedahay oo ammaanta tahay dowladda adduunka ugu xoogga weyn carar ma soo mari kartaa hormus macnaha sheekadii oo waagii dhallinyaranimada carruurta aabbaha waa kan aabbahii waa kan car ma taaban kartaa marka nimankii maraykanka waxaa la yidhi warka intay iska dhaaftiin meeshaan ma soo mari kartaa gantaaleheni haddaa burburiseen haddii awooddeena awiiqdeen waa arkaysaan ilaa markii dambe ninkii Trump ahaa uu naata u qayla dhaansado yiri soo gaara ilaa la galaa dagaalka oo laga diiday marka meesha waxay muujinaysaa wax la kala adkaaday inaysan jirin qolo walba jug culus la gaarsiiyey marka haddana sidii lagu kala joogo oo hadda xabad joojinta 2 wiig ayaa lagu heshiiyey maalmo way baxeen ilaa wiigga dambe ayaa dhiman marka ma la heshiin doonaa inta xabad joojinta ka hartay mise ma la heshiin karo waa wax kale laakiin hadda waxaa laga shaqeynaya waxay tahay xabad joojinta aan sii kordhinno oo 2 wiig meesha ay ka tahay ama 2 toddobaad 4 toddobaad ka dhigno ama 5 si wada hadalka fursad loo siiyo oo arrintu ay u socoto marka dhinac fayow marka ma jiro iiraan keligeed jugta ma gaarin dhinaca kastana jugta way gaartaa leeyahay waa gartay gudaha dalka iiraan waxaa la tilmaamayay in ay ku leeyihiin marka la eego maraykanka israa'iil taageerayaal badan haddii ay noqon lahayd dagaalyahano ama caloosha u shaqaystayaal iyaga u shaqaynayay dagaalyahanadaasi waxaa jira inay xitaa mar isku dayeen inay xukunka ka tuuraan iyadoo dibadbaxyo la isticmaalayo xaaladuna ay aad uga dartay waqtiyada ka mid a marka aad fiiriso waqti xaadirkan hogaamiyaha cusub ee qabsaday shacbiyadiisu gudaha waa sidee saameyn intee la eg bayse ku yeelan karaan dagaal dambe oo dhaca marka la eego gudaha iiraan horta iiraan way ka duwan tahay dowladaha kale ee gobolka sababtoo ah waxaa la dhahaa dowladda ugu dhulka weyn waayo iiraan marka laga hadlayo mandiqadaas iyo aaggaas macnaa dhulka ay ku fadhiso waa dhul aad u ballaaran xuduudo badan ay leedahay dowlado badan ayay xuduud la leedahay ilaa 6 dowladoodaa lagu sheegaa
inay xuduud la leedahay meelahaas midda kalena qowmiyaad kala duwan aa degan iiraan carabaa degan armeniyanaa degan waxaa degan golo la yidhahdo azerbaijaniyiin iiraaniyiinaa degan kurdiyiin wax aan deganayn meesha ma jiraan oo meeshaas waa meel maaragtay dad qowmiyaad kala duwan marka waxaa sahlan in dadkaas la isticmaalo oo mucaarad laga dhigo laakiin saas oo ay tahay way xakameeyeen dadkii mudaharaadyada samaynayay wixii oo dhan way ka adkaadeen iyagoo isticmaalay taktiig ay la yaabeen nimanka CIA-da iyo Israa'iil oo hawshan ka shaqaynayay taktiigga marka muxuu ahaa ciidankii Iiraan ayaa dharka laga dhigay waxaa laga dhigay ciidan shacab ah bistooladahoodii waxoodii dadkii dhex galeen mudaharaadyadii markaasay waxay qabtaan keliya dadka mudaharaadku marka dadna waa camirayaal dadna waa abaabulayaal dadkii abaabulayaashaa laga qabtay waa la xaray camirayaashii waa iska kala tageen marka hadda waxaa la dhihi karaa si marka loo fiiriyo gudaha wixii ka socday way iska xakameeyeen dagaalkaanna wuu saaciday oo sababtoo ah maraykan iyo israa'iil waxay rabeen inay aayatullaahiga dilaan madaxda dilaan dadkii kacaan saas dowladdii ku dhacdo laakiin bilcagsiya noqotay dhanka kale ka soo jeesatay dadkii way kaceen dalkiinaa la qabsanayaa shidaalkiinaa la xoogayaa sida venezuela oo kale ninka trump ahaa idinku baashaali doono ah kuwii xataa mudaharaadyadii waxaan ka shaqaynaya waxaa lagu leeyahay dowladdiiya taageereen nimanka inta badan waa waddaniyiin niman caadiya maaha si kastoo ay isaga soo horjeedeen laakiin qaranka iyo waddanka iyo marka loo yimaado waa isku mid marka wax mudaharaad oo dhacay ma jirin intii 40 maalmood dagaalka socday marka waxaa ku fahmaysaa waxa meesha ka jira oo macnaha dadkii inaysan la dhacsaneen weerarka lagu soo qaaday dalkooda siyaasad ahaan way diidi karaan kacaanka midda kale aayatullaahiga cusub asagay cilaaqada dadka ka dhaxaysa weli ma la ogaan karo sababtoo ah aayatullaahiga dee iyadoo dagaal socdo ayaa la magacaabay dagaalkiina hadduu dhammaaday weli laakiin isaga wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku joogaa magacii aabihiis haddii nin kale uu ahaan lahaa aayatullaahi oo bulshada laga soo dhex qabto ama wadaadada laga soo dhex qabto dadku sidee u arkaan waa la dhihi lahaa laakiin hadda cid kasta oo aabbihiisa rabtay wiilkiisina way rabaan marka halkaas marka wax weyn ma aha oo nimankan dowladda iyo muxaafidiinta kuwa la yidhaahdo oo taageera inta badan way la socdaan wiilka waa gartay dowladda maraykanka dhowaan waxay xirtay kadib markii xabajoojintu ay dhacday marinbiyoodka hormuus oo ay go'doomisay marka la eego go'doomintaasi ma miro dhashay hadafkii uu ka lahaa Trump maxay yahay wallahi go'doomintu dee shalaya ugu dambaysay waxaa la lahaa maraakiib Chinese leeyahay way ka gudbeen meesha sababtay u gudbeena lama yaqaan maraykanna wuxuu yidhi dhowr iyo toban markabaa ku waardiyeynayaa diyaaradaan ku waardiyeynayaa ciidanaan ku waardiyeynayaa waxbaan ku waardiyeynayaa Chineskuna waa iska gudbeen maaragtay ilaa hadda sababtay u fasaxeen lama yaqaano maraakiib kalaa gudubtay marka weli meesha waxaa ka jira culays badan la isma saarayo sababtoo ah maraykankuna waxay ilaalinayaan xabad joojinta 2 toddobaada iiraaniyiintuna waxay ilaalinayaan xabad joojinta 2 toddobaada marka waxaan kale waa iska maaragtay handadaad iyo maraakiibtan celinaya kana celinaya laakiin maraakiibta maraykanka ee joogta meel ku dhow hormus haddii markab iiraan leedahay ay qabtaan oo ay meesha ku qabtaan way og yihiin inaysan meesha sii taagnaanin sababtoo ah haddii meeshu meel sahlan tahay oo barxad tahay oo qof walba iska soo bari kara tahay markuu dagaalka socda imaan lahayd dagaalka intuu socday baxrul carab iyo waxay jireen badweynta hindiya marka hadda marka inay inta soo dhowaadaan ay dhahaan iiraanaa go'doominaynaa waa wax iiraan aysan wax weyn u arkin xabad joojintina la ilaalinayo marka waxaan is leeyahay aniga cunaqabatayntan saameyn weyn ma ku yeelan doonto iiraanna hore waa u sheegtay waxay tiri cunaqabatayntan waa iska af wax oo macnaha annaga nagu yeelanaysa male waddankeenu waa waddan ballaaran maaragtay 6 dowladood annaga maaragtay ka badan aan xuduuda la leenahay oo dowlado waaweyna
turkiga ku jirto ciraaq ku jirto azerbaijan ku jirto dowlado waaweyn oo maaragtay ayay xuduuda la leedahay marka waxay leedahay annaga cunaqabateen iyo wax weyn oo hadda waxaa nooga muhiimsan baarkan heshiis in la gaaro laysla ogol yahay layskuna ixtiraamayo haddii heshiis la waayana sheekadu marka halkaasi ka socona marka waa la ogyahay haddii xabad joojinta dhammaato maraykan waxbaa go'doominaa dhahay meesha ma taagnaanayo awal aa ogaan lahayn inuu meesha istaagi karo iyo in kale markaasaa la ogaan lahaa haddii go'doominta ay sii socoto inta xabad joojinta loo guda jiro kacaanka goordhoweyd gaar ahaan xarunta khaatamul anbiyaa waxay sheegeen dhammaan khaliijku inay go'doomin doonaan saameyn intee leeg bay yeelan doontaa marka tallaabadaas haddii ay qaadaan macnaha tallaabada oo in cunaqabataynta ay khaliijkao dhan saameynaysaa inay saari doonaan xarunta khaatamul anbiyaa sarkaal u hadlay goordhoweyd wuxuu sheegay maadaama dekadahooda iyagu la go'doomiyey dekadaha khaliijkana inaan marka aysan maraakiib importi samayn doonin oo aan marka maraakiib waxba laga dhoofin doonin waxna marka ay kusoo xiran doonin way sheegeen markii cunaqabataynta la yidhi waxay idhahdeen dekadaheenna keliya ma dhibaatood doonaanay dheh macnaha annaga dekadaheenna keliya lama cunaqabatayn karo dekadaha khaliijkao dhan waa cunaqabataynaynaa marka taas marka waxa waaye waa qaacido waaye qaacido iiraan u degsan waaye waa tii ay markii hore dhahday haddii shidaalkeyga lasoo weeraro shidaalka gobolka waa weeraraya haddii korontadeeda lasoo weeraro korontadan weeraraya jaamacadeyga haddii lasoo weeraro jaamacadahan weeraraya haddana dekadeyga haddii la go'doomiyo dekadaha marka su-aasha waxay tahay ma go'doomin kartaa iiraan dekadaha khaliijka haa way go'doomin kartaa albaabkii u fadhisaa markaa ka soo baxdo imaaraadka qatar kuwait ciraaq dhulkan waa inaad soo martid baabul meeshii hurmus marinbiyoodka hurmus waa inaad soo marto halkaasoo dhan meel kaloo laga baxa male meel kaloo laga gala ciddii u socotana waa inay hurmus martaa marka meeshaasoo dhanna marka waxaa albaabkii u fadhida iiraan ma u baahna marka inay maraakiibta qatar u socota iyo kuwait u socota dekadahooda inay ku qabato xataa ma u baahna ayadoo hurmus fadhida ayay markabkii u socda qatar meesha ku celinay kii kuwait u socda meeshay ku celinay kii imaaraadka u socdana meeshay ku celin kartaa marka waxaa lagu leeyahay maba u baahnaba inay dekada duqayso ama dekada tufto ayada albaabkiiyaba fadhida albaabkaas waa in la soo maro waa haddaa u socoto iyo haddaa ka soo socoto khaliijka waa inaa meesha soo marto waa meesha maraykanka isaguna bannaanka uu ka fadhiyo marka meeshaas marka waxa waaye halkaas way saamaynaysaa wayna samayn kartaa iiraan dhowaan bakistan waxaa ka dhacay wadahadallo wareegga koowaad hadda waxaa la filayaa wareegga labaad inay dhacaan iyadoo sida qorshuu yahay waqti inkastoo aan la xadidin maxaa laga filan karaa bay kula tahay wareegga labaad iiraanse wareegga koowaad maxay diiday oo wadahadalladu ay u fashilmeen horta waxaa muhiim ahayd maraykanka inuu markii ugu horreysay in muddo ah uu aqbalo foolka fool inuu iiraan ula fadhiisto markii hore waaba yesi jira isaga intii wada hadallo dhici jireen oo dagaaladan intaysan dhicin niman cumaaniyiin la yidhahdaa ka shaqayn jiray maraykanku isla weynin xataa waxay dhihi jireen dabaqa hoteelka aan ka degannahay dabaqa koraa degayna ayagu kan hoose ha degaan warqadaha saasaa loogu geynaya dhihi jireen hadda marka meeshii maxaa imaaday waa la iska dhiciyey trump waa la ogaaday cidda markuu ku waabiyo haddaa isdhiibto waa nasiibka haddii waabiskaas aa ka diiddo iska dhicisid nin ragoo ku aqoonsanaa waa dabeecaddiisa waayo marka trump waa la iska dhiciyey wuxuu arkay wixii uu rabay inaysan shaqaynayn waa la kululaysta car soo maraa la yidhi meeshaan hurmus haddaa tabar leedahay nato u qayla dhaansada odaygu marka waa wareero hadda marka maxay dhaheen annagaa foolka foola ogolnahay inaan ula fariisanno bakistan weliba waddadaa aaminsan bakistan laftirkeeda inuu soo mareen ayaga maraykanka oo ay yidhaahdeen war arrinkaa wax ka qabo nimankanu niman imtixaanay nugu noqdeen dagaalkan waa nugu dheeraaday qarash badanna oo nugu socdaa saan u xallino wada hadalkan qabta shaqadaa qabta inay ayagu soo direen aan aaminsay marka meeshii markii la tegey wada hadalladii la furay oo shaqadii ay bilaabatay culaysyo badanaa marka soo baxay israa'iil marka ayada ma rabto
in sidaan lagu kala tago Israa'iil waxay rabtaa iyadoo isticmaalaysa Maraykanka awoodiisa inay Iiraan jibiso si ay iyadu awoodda gobolka u noqoto marka haaf haddii looga tago shaqadii weli Iiraan ay nooshahay gantaalo haysato iyada khatar ku jirtaa marka fadeexada markiiba lagu furay ninkii ahaa Trump waxaa la yiri haddii heshiiskaas aad ogolaatid fadeexadii iyo ceebtii iyo wixii laga hayay banaanka la keenaa ninkan marka waxa la aaminsan yahay nimankaasu inay wax ka hayaan ceeba inay ka hayaan marka isla markii shirkii waxba waa ka soo bixi waayey weliba waxyaabaha la yaab kale laga qoray shirkaas waxaa ka mid ah aan akhriyey Iiraan waxay dirtay 70 qof 65 ka mid ah waxay haysteen PhD waa niman aqoon-yahana ninka hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka PhD oo haystay wasiirka arrimaha dibadda rag aqoon-yahana oo khatara oo sharci yaqaana oo dood yaqaana oo la soo xulay meesha loo diray niman ayagoo wareersan oo waxbarashadii ka dhacay oo madaxweyne ku-xigeenka iyo waxaan ay ka mid yihiin ninka Trumpna meesha u dirsaday marka waxa lagu leeyahay miisaanka meesha haddii dood rasmi la geli lahaa hataa afka ciidda loo dari lahaa sababtoo ah dadka ismaba isku dhigmin ba aqoon ahaan waayo aragnimo ahaan dad isku dhigma maahayn marka alcumuum marka waxaa laga faa'iiday meesha xabad joojintii uun dhaqan gashay oo macnaha xabad joojina la sameeyey 2 toddobaad waxaana lagu heshiiyey waxyaabaha la isku hayo in haddana la sii maaragtay laga sii fiirsado oo maaragtay wada hadalla kale la isu yimaado hadda Maraykanka shalay Trump wuxuu dhahay wada hadalla hoose way noo socdaan laakiin si tartiib ah ku socdaan kulan kale wuu dhici doonaa laakiin markan wuxuu ka dhici doonaa wadan Yurub ku yaal u dhaay marka alcumuum marka meesha waxaanu ka baranay oo ka fahmnay wala iska dhiciyay ninkii una aqbalay in la iska dhiciyay una la fariistay waatii xataa Yurubiyanku ay yaabeen ay dhaheen qaacidada reer galbeed haddaan ay noo dhignay Iiraan inaan go'doomino oo inaan la fariisanahay sidee wax u jiraan marka waxa la yiri nimanka Iiraaniyiinta dhibar rag ku soo baxeen marka kullay hadda waa sugeynaa wada hadalla kale waa laga shaqeynayaa ninka prime ministerka ama ra'iisul wasaaraha Pakistan maanta safar soo aaday Qatar iyo maaragtay Sacuudiga iyo Turkiga inay maaragtay dadaal weyn la geliyo sidii wada hadalla mar kale la isugu iman lahaa marka hawshaas marka iyaduna way socotaa waa gartay dad baa qaba in waxaan wada hadalla ay yihiin kaliya arrin lagu qarinayo ah in ciidamo dhanka lugta la diyaariyo isla markaana dagaal dhanka lugta lagu galo dalka Iiraan oo wali waxa ugu dambeeyay majliso amni qowmigii dalkaasi Ruushka oo maanta isagu sheegay ama ka digay marka la eego marka aad fiirisid ciidamo dhanka lugta oo lagu galo dalkaasi Iiraan maxaa ka dhalan kara bay kula tahay bayda uu isku dayay Trump ciidan uu geeyay meesha dhowr kuna maraakiib uu ku qaaday inuu wuxuu rabay jasiirad leeyahay Karak inuu qabsado oo shidaalka ugu badan laga dhoofiyo Iiraan laakiin waa looga digay waatii ay yiraahdeen nimankan Iiraaniyiinta ah ciidankaaga hadday dhul ka mid ah jasiiradaheena ay cagta soo dhigaan waa maalinkii libaax badeedyada badda khaliijka ay si fiican u qadayn lahaayeen macnaha waa idin leynaynaa baddaana idinku daadinaynaa laga wadaa marka ninkan marka xisaabaad badana la isugu dhuftay waxaa la yidhi nimankan weli awood buuxday leeyihiin ciidan lugtaan waxba loogama qaadi karo marka arrinkaa dib uu gurashuu ka sameeyey laakiin markii hore xisaabta wuu ku darsaday ciidan uu xataa soo qaaday uu meesha keenay markab ku soo qaaday weli ciidamadii way joogaan meesha laakiin waa looga digo digniino badanaa la siiyey waxaa la yidhi iska ilaali awal markaa doorashada soo galaysay askarta Maraykanka inay ku dhintaan meel bannaanka ah ma ogoli askari dambe oo Maraykana inuu maaragtay dagaal ku dhinto ma ogoli waxaasaa ku soo gashay laakiin hadda askartii haddaaba dhowr la sii maraya 100-200 iyo xogaa wax dhaawacmay iyo wax dhintay la sii maraya marka arrintaas marka dib u gurashu ka sameeyay dadka wax falanqaynayna waxay leeyihiin wax badan ciidamada lugta ah ma ka qaadayaan sababtoo ah ciidan luga oo aad u xoog badan oo 2 qayb ka kooban Iiraan leh qayb waxa la yiraahdaa ciidanka ilaalada kacaanka la yiraahdaa al-Haras ath-Thawri la yiraahdaa
qaybna waxa waa militariga caadiga ah dadaa mararka qaar isku qalda oo mooda Iiraan dhan inay ciidanka xaras thawraga ay leedahay laakiin militariga sidiisu u dhisan yahay wuxuu leeyahay ciidan cir ciidan bad iyo ciidan dhul taangiyo waxaas leeyahay laakiin militarigaas ciidan kale u dhigma oo asna waxaas dhan laha jira oo la yiraahdo al-xaras thawri la yiraahdo ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan la yiraahdo marka laba ciidan oo isbarbar taalo oo isku awood ah oo maaragtay mid walba uu military yahay ayay haystaan oo commandos haystaan oo kuwa quusa haystaan kuwa diyaaradaha ka booda haystaan marka ciidan nimanka luga ma loogu tagi karaa ninka waa loo sheegay waa gartay dowladda waddanka Iiraan waa ay dagaalantay waqti badan baa markaasi juhdi adag ay bixisay marka la eego xaaladda marka laga hadlayo waqti xaadirkan nuclearka iyo weliba barnaamijka uraniumta dood fara badan baa ka taagan maxay tahay sababta Iiraan ay ugu adkaysanayso uraniumteeda in ay bacrimiso boqolkiiba tiro laga siiyo oo aysan rabin in maaragtay gebi ahaanba uraniumta ay ka takhalusto maxayse ugu adkaysanayaan Israa'iil labsadoodu iyo Trump in gebi ahaanba ay ka takhalusaan uraniumta waxay leeyihiin uraniumka waa ka shakisannahay macnaha ma ku aamini karno uraniumkuna wuxuu joogaa cabir haddii waxoogaa fursad la siiyo Iiraan ay kobciso uraniumka uu gaari karo bam oo weliba aad ugu dhow yahay bam nuclear in laga samay karo marka waxay leeyihiin marka annaga iyo adinku maadaama aan dagaalsannahay cilaaqa fiican aysan naga dhexaynin oo xiriir fiican uusan naga dhexayn marka waxay noqonaysaa inaan waxaan dhan meesha laga saaro oo uranium iyaduna marka maxay leedahay khiyaanaa marka meesha ku jirto waa la iskhiyaanayaa bogtay iyaduna waxay leedahay war annaga maxaa noo diidaya sharci ah nuclearkeena iyo uraniumkeena inaan si nabadgelyo ah u samaysano marka adduunka nuclearka labaa loo samaystaa nuclearka marka aad uraniumka bacrimintiisa badisid heer bam uu gaaraa oo macnaha nuclear bam laga samay karo haddii laakiin heerkaas aadan gaarin oo meel dhexe aad joogtid waxyaabo badanaa uga faa'iidaysan kartaa nuclearka nabadgelyada la yidhahdaa nuclearka nabadgelyada marka dowlado badanaa haysta sacuudiga haddaa loo dhisoyaa waa samaysanoyaa turkiga ruushka u sameeyey laba maxadoo waaweyn oo nuclear nabadgelya u haystaa maaragtay qatar way samaysataa le imaaraadka wuu samaystay dowladahaasoo dhan marka waxay haystaan nuclearka nabadgelyada marka maxaa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa korontada laga dhaliyaa warshadaha waaweynaa la isticmaalaa tamarta maaragtay ayaa laga dhaliyaa marka wax badanaa loo isticmaalaa adeegyo badan marka waddan kasta marka wuu haystaa kaas waa iska normal wuu isticmaalaa korontada laga dhashadaa warshadaha lagu shaqaysiistaa marka waxay leedahay annaga maxaa keligeen loo diidaay marka adinku ma ka baqaysaan oo inaad bam samaysto haa waxaa soo dirsataan hay-adda atomiga adduunka ha timaado marka hawsha ha qabad shalayba hay-adda atomiga adduunka markay cabbaar shaqada daba waa isku dhacayseen waa soo ceyrinayseen marka waxay haws ah ka samaynayseen yaa og marka shakigaasaa meeshaas jira marka qorshaha marka dhowaan waxaa soo dejiya ruushka wuxuu yidhi uraniumkan Iiraan ah ka shakisantiin anaa qaadaya waxaan geynaa dalkayga Iiraan anaa u haynaya markii xaaladdu degto in ku filan tamarta nuclearka oo warshadaha iyo korontada loo isticmaalo haddana aan keenaynaa tii maraykanku way shakiyeen haddana way diideen iiraaniyiinta laftirkooda way diideen waxay yidhaahdeen waxayna maxaa loo qaadaa meeqan bilyanis lacaga noogu fadhiyaa uraniumka ma la qaadaayo maraykan adi haddaa awood leedahay kaale ciidan u soo dirso uraniumkeena qaado adiga qaado kaale qaad uraniumkana wuxuu ku jiraa lagu leeyahay buuro waay waddanka Iiraana oo maasha Allah ilaahay wuxuu siiyey buuro adag oo wax walba aysan ka dusi karin buurahaas marka hoostoodaas uraniumkooda ugu qarsan yahay oo warshadahooda ugu samaysan yihiin nuclear waxyaabaha kale ee muhiimka ah isla uraniumkan iyo waxaa ka mid ah warshadda la yidhaahdo Poshar oo nuclearka uraniumka nabadgelyada ka shaqaynaysa waxaa iska leh shirkad Ruush ah maal gashatay
shirkaddii ruushka shaqaalo badanaa u jooga waa tii maalin hore marka warshaddaas israa'iil ayaa waxay ku dhufatay dhowr gantaal meel bannaanka ka ah warshadda u dhow ruushka shaqaalihiisii waa soo qaatay in yaroo injineera ayaa ku haray waa tii ruushka uu la hadlay israa'iil uu ku yidhi dhegayst meeshaas hantideennaa taalla meel nuclear bam ka soo socdana maaha sidaa darteed waa inaan marka mar dambe aynaan u laaban oysan waxba ku dhufanin haddii kale waxaan u arkaynaa danaheenna dhaqaalaha inaa burburinaysaan cid aan adduunka dana dhaqaalo ku lahaynna ma jirto marka markii hadalkaas uu ruushku dhahay nimankaa dib ay uga gurteen kadibna xabad joojintii wixiyaa la galay maraykanka marka nimankaa ruushka ahna digniintaas way u direen israa'iil marka ilaa dhowr meeloo ruushka kala shaqaynaya iiraaniyiinta waxaanoo dhan marka asagaa marka la dhisaaya oo cilmiga nuclearka uraniumka bacrimintiisa iyo nimankan ruushkaa meesha ka shaqaynaya waxaan dhihi lahaa janalkan waa runtii janal aad iyo aad muhiim u ah marka laga hadlaayo akhbaaraadka iyo mararka qaar sportiska aad uga barateen saaxiibkeen cabduqaadir marka waxaan jeclahay janalkan in la kala kiciyo oo ninkaa odagaa subscribe badan la siiyo haddii facebooka aad kala socotaana follows badan la siiyo mar walbana aad ku xirnaataan insha allah aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa al-ustaad cabduqaadir maxamed cashar nadaara warugcadaaga saxaafadeed weli in badan markaasi kusoo jiray saxaafadda soomaaliya iyo weliba markaasi saxaafadda caalamka aad iyo aad u mahadsan tahay mar kale waan kaaga mahad celinayaa sida qiimaha badan ee waqtigaaga aad igu soo hurtay adigoo waqtigaaga uu kooban yahay sharaf bay ahayd markaa waraysigan inaan kaa qaado aad baad u mahadsan tahay ustaad